40D09328. Verdict Form B. We, the jury, find the defendant Daniel Villegas not guilty of... Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina fiican oo dhiirigelinta ah, like-ta ay sameyseen, sidoo kale comments-ka ay sameyseen iyo subscribe-ka. Run ahaantii qof bilow ah sidaas ay igu sameyseen aad ba ugu mahadsantihiin. Waxa halka iga tusaysaan dhiirigelintiina aad igu soo dhaweynaysaan channel-ka inaan hore u sii socdo. run ahaantii inikoo taa ii sameeyey ayaa haddana waxaa iniga codsanayaa inaan hore iisii wadaan aadan iga daalinin. waani ogahay qof walba howluu leeyahay, laakiin thank you so much. run ahaantii maanta qisadan way ka duwan tahay. xagga iyo carabta waa kasoo wareegnay, maanta waxaan joognaa Mareykanka. qisadani maxay ka hadlaysaa? qisadana waxay ku hadlaysaa waa dadka jeelka ku jira. dadka jeelka ku jira waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. dadka jeelka ku jira dad waxaa jirta dambi leh iyo sidoo kale dad aanan dambi lahayn. wiilkan wuxuu ahaa wiil u dhashay wadankan Mareykanka. wuxuu jiray markii uu falkaas u dhacayay 16 sano jir. wiilkani 23 sano ayaa lagu xukumay. 23 sano qof aanan dambi lahayn oo lagu xukumay. waxaa lagu soo eedeeyay in uu dilay 2 qof oo xabad lagu dhuftay. run ahaantii wiilkaasi sababta uu u qirtayna waxay ahayd ninka dambi baaraha ayaa wuxuu yiraahday haddii asaa oran weydo waxyaalo khaldan ayaa aniga igu sameysay. dan wiilkii ilmo yar buu ahaa, go-aan wuxuu goostay in uu dhaho waa sameeyay waxaan. 1995 ayaa xukunkiisa ugu dambeynta ay dhacday. waxaana lagu xukumay in uu xabsi daayin ahaado. 23 sano ka bacdi ayuu wuxuu qaatay rafcaan. lawyer loo qabtay familkiisa. waxaa la ogaaday in uusan wiilkan dambiga lahayn. xaqiiqduna ay tahay ninkii dambiga baarayay in uu saa ku yiri. waxaa eedeyntaasi ama dambigaasi uu ku cadaaday 3 nin oo kale. cimrigiisii 23 sano uusan u lahayn ayuu asaga oo cimrigiisa kusoo dhamaystay jeelka. jeelasha waxa